What is your body count? My body count. Yeah, your body. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان برشاد الصومالية إذا ونيسا waxaan idin leeyahay meel kastoo aad joogtaan xilli kastoo ay idin tahay waxaan idin leeyahay barwaaqo iyo bashbash iyo farxad ku noolaada waxyaalaha adduunka ka dhacaya yani goobjoog baynu kana markhaatina baynu kana markaas aad idin leeyahay yani waxyaalo tiro badan oo isqoonsanaya aan dareemaya ama daawanaya dhaqanka Soomaaliyeed waa mid aad iyo aad u cajiib ah waa xidiido iyo jirido aan isdhaafsan oo aan marraba doobi karin waa aragti dheer iyo fikrado la turxaan bixiyay oo aad u qiimo badan dhaqanka Soomaaliyeed waxyaalo badan baa ka mamnuuc ah dhaqanka Soomaaliyeed waxyaalo badan ayaan ku dhex milmi karin laakiin bariyahan dambe bulshada Soomaaliyeed waxyaalo tiro badan ayaa caadi noo noqday okay dhaqanka Soomaaliyeed marka laga soo tago qof walba hooyo ayaa dhashay wanaag tiro badan ayuu u hayaa runta hadda idin sheego aniga hooyaday saaxiibkay ku wado nolosheeda qof kaliya aan maanta saaxiib la ahay saaxiib reliable aan ku ahay ama aan ku tiirsanahay ama aan jecelahay inaan wax la wadaago hooyaday qofka adduunka igu qiimaha badan nolosheeda igu qiimaha badan oo hooyaday qofka aan isleeyahay run ahaantii maanta alleelehe hurdo agtiisa waxaad ku gamcaysaa nadiif ah ama yani hurdo waxaa jirta hurdooyinku kala duwan hurdo caadi la seexdaa jirta laakiin hurdo waxaa jirta aadan wad mooye wadtaca ka meel galay meel oran jiray waadan ka cabsi wad ma ayaa dhimatid ma ahane aadan wax kala aad u cabsinayn qurbaha marka la joogo ama waddanka la jooga ama meel kale la joogaba qofku wuxuu ku seexanayaa waa saacado kooban waa ordayaa waa kala hayaa laakiin meesha hurdada saxda lagu seexdo in adduunka dushiisa marka laga hadlayo waa hooyada agteeda waagan yara hooyaday markay soo barbaarinaysay run ahaantii waxay igu soo barbaarisay dhaqan aad iyo aad u adag waxyaalaha qaar hooyaday ma aysan jeclayn sida jiljileeca hadallada dadka waaweyn lagu dhahayo hadallada dad markaan ka dhex hadalno 3 qof 4 qof waaweyn gudahood markaan hadal ka dhex iraahdo way fiirin jirtay ish ayaa saliig original wax la oran jiray waxaad ku socotay markaas aan ogaan jiray inaan waxaan ku socdaa xataa ay khaladi yani eye contact baan ku wada xiriir jirnay hooyaday haddaan khalad sameeyay halkaas asaas la oran jiray waa dareemi jiray qofka hooyaday soo korisay uu garanaya baan maranaya khalad markaas sameeyay hooyada maxay sameynaysaa aanu leeyahay bis macnaheedu waxa waaye khaladka ku jirta waa midaan ka shari doono hooyadii saa looga baqi jiray hooyadii saa loo xushmeyn jiray hooyadii wanaagan u soo barbaarisay maanta waxaan maraynaa in la weydiiyo hooyo sheekar wallahi waa adagta hooyo intee nin ayaa kula soo seexatay yaa ilaah alcaalam war xasbi allah wa ni'mal wakiil war dhaqankii intuu guuray ee edab daradii badatay ee anshax xumadii baratay ee wax walba xumaadeen bayna waxaan maraynaa maanta video intaan isla soo fariisano hooyadii halkan soo fariisay aan iraado hooyo bulshada saaxiibaday ah oo cadaan iyo madow iyo gaalo isugu jira waxay soo weydiiyeen hooyada su'aal noo soo weydiiyo waxaad ku dhahdaa meeqa nin baa marka yar la soo seexday war yaa ilaahay yaa islaam ah war bulshadii maxaa ku dhacay war dhaqankii maxaa ku dhacay laakiin dhaqan maba lagu soo barbaarin qofka noocaas videoga hadda aan daawan doono waa wiil Soomaaliyeed oo walaalkeen ah oo magaciisa la yiraahdo Cabdikaafi aan jecelahay oo reer UK inay jecelahay London inay degan yihiin baan jecelahay hooyada soo korisay horta waa hooyo qiimo badan laakiin biyo ka badan iyo bulsho ka badan way ku harqiyaane maamadii waa laga awood baday waagi hore YouTube kaligiis baa lahaa YouTube kaligiis u furnaa ma ay soo gali jirin branke iyo waxaas ku sameyn jiray marmar laakiin maanta wixii say hadba u soo waday hooyadii waa soo fariisay haddana su'aalahaas aad ila daawan doontaan baa la weydiinaya bal la daawado Okay, so body count is how like انت قفا ارست انت قفا اللي جبت عم ما حاس maxay waa marka edab daradaas oo weydiinaysiin see camal
Okay, so your body count. What's your body count? بسم الله الرحمن الرحيم. Okay, moving on. هذا وريان سقجامين. Okay, she said. waaye waxaan u malaynayaa inaad ka wada bogateen run ahaantii horta ma qosliyay kumana qosliyay arrinka noocaas laakiin aad baan wallahi uga qiiraysan hooyada qiimaha ay leedahay qofka aan garanayn sida rabo ayuu ka yeelaa marka waxaan oran karaa walaalkay hooyadii ku yaqaanaa oo sida si uu garanaya laakiin heerka saxda ah ee hooyada ay u fadhido ama booska saxda ah ee ay ka joogto ee hooyada ay joogto ayuusan fahansaneyn walaalkay ma ceebeynayo ma xumaynayo هذا كم قلوعين أي يعني واحد جعلها إن أتصه يعني ما دام أنا أركو يعني سأنا أركو فكر كي كهلا هو يدي إنه ويدي سؤال نوعاس وكليس رقم كنا كتير دين تلك أوربني ويل حنا أما صاحب كلا هذا قنع إسله وارد كشرت سميلها وكذا هذا إسله ويل حنا قنعي أما بالشيء سوشيال ميديا كأحيانا قنعي هذا إسله شرفت والدكaaga meel uga dhic sharafta hooyada ku dhimo wallahi aniga iska daayay hooyaday wallahi inaan weligay noloshaydii aan ku soo qaadin hooyo xataa aabahay si isku baratay wallahi aan ku oran wali noloshaydii kuma oran wallahi way dhaqan baa xirayade waxba istaajinaya يعني حينداب أنا كنت بكريم بإلتا أنا هو يدي سؤال نوع عاسق الأودي مركب وحيالها الدورسون كبرشدين الصوماليات كسو دعية أين الله سوق قبصاننا وحا كم ذا إن هو يدي ميل ببلي سؤال نوع عاسق الأودي إن خنيس كي بطو إن لسبيان كي بطو إن رشي الصوماليات أي قد كسي دعضو بين الله سي قبصانينا لقبسك أن لقبصانينا وحو نوكين يا بري إني وحول بعاد نوع هذا إني ها وحول بأي عاد نوع هذا إني نقرأنا اللبول الصومالية أما اللي بقى الصومالية أو سي أوفيشيال من حفل الله ولقنا نسقول سنة وحين السودنا إلى هاي نمرقاتنا وما نجي وحين كوبقنا إني قارنو ها إن ملحن الصومالية أي كسرت إلى كبد باذية إنها ماشي هاد أجونا مالك عن قرنا كبقية حنقول نسحين يا هناك الصوماليات حنلاقي هاي شلمانتا أديو تيرو كرادة نسيت يولش صاحبها أما قبلها صاحبها أي سوشيال ميديا كاga xiran qiimaha hooyada hoos ha ugu dhigin hooyaday aniga heer waxaan gaaray ana horta waxbaan curiyaa oo maansooyinkan wax ka qoraa wax ka diyaariya haddana eray u dhigma baan wallahi ila 4 sano 5 sano gudahood waxaan ka daba wareegayaa eray inaan maanso hooyada u diyaariyaan jecelahay haddana awoodeedii eraygiis ku habboonaa baan la ahay 100 eray baan helayaa 1000 eray baan helayaa malaayiin baan helayaa haddana xasan mayman kan kuma saxna waqti u baahan tahay weli khadrow hooyo si aad maanso wanaagsan ugu samaysid waxaad u baahan tahay waqti kale inaad si qaadatid markaasay waxay igu qaat 4 sano inaan hooyaday maalin u sameeyo maanso ayada aan ku qiimeynayo waayo wax la qiimo abaan waayo waxaan ku mataalan wallahi waayo waxaan ku mataalo baan la ahay oo adduunkaas quruxdiisa aad arkaysaan saaran wallahi waan la ahay halka hooyadii naga joogtay maanta waxaa la marayaa in la yiraahdo meeqa nin baa hooyo kula seexatay aniga see ku dhashay micnaha accident baan yani si lama filaan miyaan ku dhashay qaabkee calooshaada ku galay in la yiraahdo Was I an accident? You. Yeah. Okay, oh, Lisa, like when you was before you had me, was that accident? Let's go outside. Let's go. We're going around the corner. Let's go. You have to think about it. You have to... Because what has Because no, as in like Isha, mistake my honey. I'm an accident. my accident may have. Was I planned? No, not blind. wariyaha dhaqankii war maxaa ina ku dhacay dhaqanka xataa haddaan ilaalino diintii maxaa ku dhacay hooyadii maamada Soomaaliyeed waxaan leenahay hooyo aad baan kaaga raali gelinayaa aniga run ahaantii anaa ku hadlaya afka dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan ku leeyahay hooyo aad baan uga xumahay inkastoo wiilkaaga yahay haddana kuma qalmin su'aal noocaas kala in lagu weydiiyo hooyo raalli ah
hooyo macaan raalli ahaw waxaan la hadlayaa hooyadii su-aalaha la weydiiyey hadda aad arkayso hooyo waxaan ku leeyahay sida aad kusoo korisay dhibka uu soo maray wiilkaaga waan ognahay laakiin dhaqankii wuu ka weecday oo oran kara su-aal noocaasna kuma habboona hooyo raalli ahaw sharaftaada heerkaas ma ahan hooyo raalli ahaw waxaas iyo wax la mida in lagu weydiiyo hooyo ma mudnida raalli ahaw walaalkay cabdikaafina waxaan leeyahay baraada waxaas kooma qurux badna hooyo sharafteedii dhowr madaxa saaro waan ogaa inaa hooyada jeceshahay wiil baari inaad tahay wiil wanaagsan inaad tahay wiil aqoonla inaad tahay wiil dhan walba ka diyaarsan inaad tahay laakiin dhanka hooyada iska soo diyaari waa iga naseexa walaalkay xumaan ha ii arkin walaalkaa soomaaliyeed baan ahay dembi baa kugu kor yacni qof weyn baa tahay maanta dembi baa kugu fuuli kara yacni ereyada noocaas oo kale ah maqaamka hooyo waa marka lagu leeyahay hooyadaa labadeeda lugood dhexdooday jannadii ku jirtaa ninka hooyadiis nooshahayow hooyadaa haddaad janno u baahan tahay labadeeda lugood dhexda ka raadi ma jecli video inaan dheereeyo laakiin waxaan bogaadin iyo hadal cad dheeri codkaama ku leeyahay soomaaliya iyo aan isdaba qabano wixii khaldan oo aragno aynu iska waanino walaalo wada jiro isku xiran aan ahaano meel kasta oo hooyo soomaaliya joogtana waxaa la hooyo soomaaliyeedee waa ku jecelnahay hooyo soomaaliyeed farxad ku noolow hooyo soomaaliyeedee waxyaala badan oo aad u qalmin baad arki doontaay waxaan ku leeyahay ilaahay abaalkaaga ku siiyo hooyadii halkaan ka salaamay hooyadii macaan hooyo aadna ku salaamayaa videogan waxa weeye video hooyooyinka aan ugu talagalay waaye meel kastoo aad joogtaan soomaaliya idinkana waxaan leeyahay war wanaagga aynu ku dadaalno inala tegin shilimaanta xunka youtube-ka laga fiirsanayo ama laga aruurinayo yeenan dad raalligelintood kan yeenan ka hormarin waaridkii aad iyo aad baan idin salaamaya meel kastoo aad joogtaan iyo si kastoo aad maqlaysaan waxaan leeyahay barwaaqa iyo bashash ku noolaado السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.